السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي من والبعد جوكتان سو دوادا موقال كان وحيدن كل وداقي دونا شنت مبدأ هكامين إيه لغا برتو غرغركا قدبك كوبات غرغركو كليجي أيو جوكيدا السريع هودا أدولا لما الدولو شمبراها يرير تكاها يدمان نوعيدا كالدوان أي شمبراها معنا قدبكن كجر وحوياي كفقو دادك مسكح دير يكو هوس أدقيا فكرة دهالي إيه شخصية دادا قدبك اللبات غرغركو وحو ليهي أركتي فوق أو صحا waxay awood u leeyihiin inay diirada saaraan wax ilaa 5 kiiloomitir u jira wax kasta oo caqabad ku ahna uma joojiyaan oo marnaba kama leexdo yoolkiisa ku aadan ugaadha uu ugaarsanayo macnaha qodobkan ku jira waxa uu yahay yeelo aragti oo diirada saar wax kasta oo caqabad ahna u joojin ugu dambeyntiina waad guuleysan doontaa qodobka saddexaad wuxuu yahay gorgorku ma quuto mana cuno baqtiga kaliya waxay quutaan wax freeshka ah ee markaasi ay iyagu ugaarsadaan macnaha qodobkan ku jira waxa uu yahay ha isku halaynin guushaadii hore ka tag wixii aad soo dhaaftay waagii hore oo marnaba xisaabsan raadi xeelado cusub oo aad ku guuleysan karto qodobka afraad gorgorku wuxuu jecel yahay duufaanta iyo dabaylaha marka ay daruuruhu isu yimaadaan gorgorku wuxuu dareemayaa reyn wuxuu u adeegsadaa dabaylaha si uu kor ugu qaado awoodiisa sidoo kale wuxuu iska kormariyaa daruuraha taasi waxay siinaysaa gorgorka fursad ah in baalashiisu ay nastaan macnaha qodobkan ku jira wuxuu yahay la kulan caqabadahaaga si aad u ogaatid in kuwani ay kaa dhigi doonaan inaad ku soo baxdo mid ka xoog badan oo ka fiican sidii hore waxaan u isticmaali karnaa caqabadaha nagu yimaada si aan kor ugu qaadno nolosheena oo aan meel sare u gaarno guuleystayaashu kama baqaan inay tagaan meel sare kama cabsadaan caqabadaha laakiin way ku raaxaystaan oo si faa'iido leh ay ugu isticmaalaan caqabad walbana oo ka hor timaada qodobka shanaad gorgorku marka uu gaboobo baalashiisu way daciifaan oo kor uma qaadi karaan sida ugu dhaqsiyaha badanna ma gaarsiin karaan yoolkii uu rabay tani waxay ka dhigaysaa mid daciif ah oo sababi karta inuu dhinto sidaas daraaddeed wuxuu u fariistaa meelaha sarsare ee buuraha ah inta uu halkaa ku jiro ayuu baalashiisii jilicsanaa iyo cidiyihiisii jijibiyaa wuxuuna dareemaa xanuun badan muddo meeshaas ayuu ku jiraa oo ku dhuntaa ilaa ay u soo baxaan baalal iyo cidiyo cusub kadibna wuxuu soo baxaa isagoo awood badan una duulaya sidii hore si ka wanaagsan macnaha qodobkan ku jira waxa uu yahay waxaan u baahannahay inaan iska dhaafno caadooyinkeenii hore si kastoo ay u adag tahay waa inaan iska dhaafnaa waxyaabaha culayska nagu haya ama aan wax qiimaha nagu soo kordhinaynin waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like nagu dhiirigeli wixii talaana qaybta commentiga nagula wadaag kanaalkana rukumo si aad u aragto muuqaalada cusub ee aan soo gelin doono insha Allah asxaabtaada la sii wadaag si ay iyaguna uga faa'iideystaan mahadsanid